ماذا بوليسكا حكومة مدحوين أحمد سيلانيو أي سير حندر أي جردلة وقراعي مدح وركي تلفزيون كبولش محمد شعير وأحمد إذا ماذا أياو أذيك سدي قوري دبديس يبرر أي دفك كل علينيين اللي أي تدوينو اسكو صابحين ololaha doorashada golayaasha deegaanka oo siyaasadeedka wadani taasoo maanta ku soo bandhigay xuduudiisa taageero guud ahaan dalka wariye maxamed ciire axmed oo ku guda jiray waajibaadkiisa shaqo oo xaq u leeyahay inuu bulshada u adeego si uu ugu gudbiyo wararka iyo dhacdooyinka ka dhaca Soomaaliland maaha markii uu horeysay ciidamada xukuumadda madaxweyne Axmed Ziilaanyo ay jirdil iyo garaacis u geysato wariyaasha kala duwan ee ka howlgala warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ayaa aan lahayn anshax ay kula dhaqmaan bulshada iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliland waxayna u baahan yihiin in ciidamada Soomaaliland la baro shuruucda ay xaq u leeyihiin inay bulshada ay u dhexdhexaad ugu noqon karaan xukuumadda madaxweyne Ziilaanyo ayaa intii ay talada haysay wariyaasha Soomaaliland u geysatay jirdil iyo garaacis iyo xidhis in ka badan 27 wariye ciidamada booliska Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Axmed Ziilaanyo ayaa cadeystay garaacista iyo jirdilka ay ku hayaan wariyaasha kala duwan ee ka howlgala warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland iyo kuwan caalamiga ah tan waxay ku soo beegmaysaa xilli laba wiig ay ka soo wareegan wariyihii telefishinka Universal uga soo waramayay magaalada Laascaanood aanay wax go'aan ka soo saarin inta ay u qabatay dilka qofoosha xulle ee lagu dilay wariyahaasi waxa Xasan Faarax qamaan telefishinka bulsho Hargeysa